walaalayaal ku soo dhawaada qisooyinkii ku cibir qaadashada mudnaa waa mar kale iyo kanaalkeeni sirta nolosha qoyska. Saddex nin ayaa jiray oo saaxiibo ahaa ayaa wada noolaa. Saddexdii nin laba waxay ahaayeen xamaali, midna wuxuu lahaa gaari uu ku shaqaysan jiray. Waxay ahaayeen saddex nin oo isku kalsoon oo wax wada cun leh. Midkii gaariga lahaa ayaa wuxuu hamiyey inuu lacag kaydsado. Markaa wixii ay wada cuni jireen ayuu ka saluugay. Wuxuu bilaabay inuu lacagtiisii aruursado. Labadii nin oo saaxiibada la ahaa ayuu wax la cuni jiray weli asoo sidaas ayaga ayuu la deganaa. Marka qisadan waxay ka dhacday Soomaaliya, Muqdisho. Ninkii saddexdii nin isku magaalay marka hore ka yimaadeen. Kadib ninkii wuxuu sameeyey, nimankii labadii nin baa u tashaday. Waxay dhaheen gabadha ugu quruxda badan magaalada ayaan uga dhigaynaa, ayaan ku itixaamaynaa ninkani. Gabadhaas ayaan ugu talagalnay inay ka burburiso hantidan iyo gaarigan, sababtoo ah ninkan wuxuu joojiyey inuu wixii aan wada cunka lahayn iyo wixii aan wada cunaynay uu kaligiis ku soo koobo. Labadii nin markay tashadeen, gabar qurux badan magaalada ugu quruxda badan ayay u raadiyeen. Gabadhaas ayay go-aan la dhigteen, ama gabadhaas ayay heshiis la galeen ninkan sidii looga burburin lahaa hantida uu haysto, ama gaarigiisa sidii looga gadi lahaa oo loo dhaafin lahaa hantidaasi. Gabadhii ballan ayay kula gashay nimankii inay sidaas samaynayso. Maxaa dhacay walaalayaal? Kadib ninkii waxaa loogu talagalaa mar walba, nimankan waa niman saaxiibo ah, way wada fadhiistaan mar walba. Ninkaani marka mar walba waxaa loogu talagalaa wuxuu cuni lahaa waa loo diyaariyaa, gabadhaa loogu dhiibaa. Sii baa la dhahaa, way siisaa, caanaa la siiyaa, raashin baa la siiyaa. Haddii ay uu saaxiibadiis uu rabo inay niman wada qayle ahaayeen uu la qaylayay, qaadkii waa loo soo dhigaa. Markuu dhammeeyo caanihii baa loo keenaa. Gabadhii iyo ninkii sidii saa isugu ahaayeen oo saa loogu dhaqaaleyn jiray ayuu ninkii wuxuu ku soo aruuray inuu meel kale la qabsan waayo. Waxaa loogu qasbay inuu guriga usoo cararo ay labadaa wiil deganaayeen, oo gabadha quruxda badanna ay ugu talagalaan ay ugu dhiibaan wax ay u geeyaan. Kadib markii uu jeclaaday gabadhii ayaa waxaa la yiri ninkan inaad ka iibisa gaariga ayaa la rabaa. Sidee la yeelayaa marka? Mar walba ninkan shaqada ayuu aadaa oo gaariga iska leh. Labadaa nin xamaaligoodii ayay aadaan, way soo dhacsadaan. Mar walbana ayaga ayaa bixinayo wixii qarashaad ku baxayo inta ninka laga dagayo. Marka gabadhii waxay samaysay sida ninka gaariga looga gado. Markii ninkan la baray macmacaan oo wax walba loo sameeyey, ayaa wuxuu ku soo aruuray inuu bixi waayo shaqadii uu gaarigii dad u dhiibo. Okay, marka gaariga uu imaanayo iyo marka wuxuu la control waayay, uu rabay uu control waayo ama uu maamuli waayo inuu shaqadii ka warqabo. Gaarigii nin baa loo dhiibay. Ninkii lacag buu ka keenayaa, laakiin lacagtii waxaa loogu talagalay ninka in la burburiyo. Kuma filnaanayso mar walba wixii la cunayay ama wixii la isticmaalayay. Maadaama loo baahan yahay qarashaad fara badan, waxay noqotay gaarigii inuu ninka iska iibiyo. Gabadhii baa u soo jeedisay maalin maalmaha ka mid ah, qarashaadkeenu waa badan yihiin, gaarigan oo hadba kugu xumaanayo oo hadba wax ka bedelaysid inaga iibi. Waayo mar walba uu shaqeeyo lacagtii ayuu dib ayaa loo geliyaa qayb ka mid ah ayay ku tiri. Ninkii raggu inta badan sir naageed lagama salgaaro, waa meeshay ka timid. Inta badan ragga mar walba ma foojigna oo ma ka fikiraan, mar walba ma ilaalin karaan macnaha waxa ay hayaan. Waa tan ay Soomaalidu tiraahdo, Soomaalidu ma ilaaliyaan macnaha saldanada, ama Soomaalidu ma ilaaliyaan xukunka oo kale marka la leeyahay. Meeshaasay ka timid. Ama ragga mar walba ma ahaanayaan kuwa effective ah oo active ah. Marka ninkan sidii loogu soo celcelinayay halkii maalinkii dambe uu ogolaaday gaarigii inuu iibiyo. Gaarigii markuu iibiyey maxaa la qabanayaa? Shaqo ma jirto. Ninkan shaqo kale ma yaqaano. Marka lacagtii baa la cunay. Meel cidla ayuu ninkan soo istaagay markaa. Marka hore wuxuu galay nolol fiican oo wax walba waa loo diyaarinayay. Markii dambe maxaa lagu sameeyey in gaarigii laga iibiyo, lacagtii sida loo isticmaalay markay dhamaatay. Ilaa lacagta haddii wax laga soo qaaday wax aan lagu kordhinayn waa ay dhamaanaysaa.
markii lacagtii ay dhamaatay ayaa ninkan waaga u baryay. Waxaa la yidhi guriga ka soo bax, guriga ma adaa iska leh, haddii aadan lacag haysan kabahaaga guriga nala soo dhaaf baa la yidhi. Ninkii asigoo argagaxsan oo aan la qabsan karin bannaanka ayay labadii nin u yimaadeen. War hebelow maxaa kugu dhacay? Waa labadii nin oo sirtaa u dagay. Wuxuu yidhi waxaan rabaa meelaan naagba laga arkayn oo maqalkeeda mooye aan araggeeda laga arkayn in la ii geeyo. Waayo wuxuu ogaaday in ninkan lagu siray oo lagu dagay naagta, si kale loo dagaa ma jirin. Marka mar walba oo qof oo nin la rabo in la dago ama in la qabto waxaa lagu qaban karaa ama lagu qabtaaba gabar qurux badan. Marka ninkii markii dambe wuxuu ku dambeeyay xero military. Qisadan ayaa waxay noo tilmaamaysaa ragga la gaadi waayo ama la qaban waayo ama kaartada miirana in lagu dagi karo gabdho oo qurqurux badan ay ka helaan. Qisadan waxaa xiga qisooyin kale oo fiican oo aad iyo aad u wanaagsan oo ku cibro qaadasho mudan. Sidaa darteed waxaan idiin rajaynayaa kanaalkeena Sirta Qoyska inaad la socotaan oo subscribe ay saartaan. Sidaa darteed la socda sheekadan sheekada